السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دواada koorskan farsamada baabuurta casharkiisii saddexaad cutubka koobaad. Casharkan saddexaad waxaan uga hadli doonaa qaybaha baabuurta ee makaanikada ama farsamada. Casharkan waxaan soo jeedin doonaa aniga oo Maxamed Xirsi Faarax. Wixii jawaab celin waxaan ugu soo celin kartaan emailka shashada ka muuqda. Koorskan waxaa kala daalacanaysaan ama kala socotaan ama ka dhiganaysaan Somalism Online Academy. qaybaha baabuurta ee farsamada makaanik horta marka hore aan isla fahanno waa maxay farsamada baabuurta ama waa maxay makaanikada baabuurta. Makaanikada baabuurtu waa barashada shaqada iyo cilad bixinta nidaamyada baabuurta. taas ayaa la yiraahdaa farsamada baabuurta ama makaanikada baabuurta. Makaanikada baabuurta waxa ugu muhiimsan waa matoorka, waayo matoorku waa halka ay ka timaado tamarta gaariga ku socdo. gaarigu wuxuu u qaybsamaa saddex qaybood oo waaweyn: boodiga gaariga, caqaayadaha iyo wareegyada. boodigu waa qaybta ugu weyn ee gaariga, taas oo siisa haykalka gaariga iyo qaab dhismeedkiisa. Caqaayadaha waa qaybta daboosha gaariga, muujisana gaariga quruxdiisa. Sidoo kale caqaayadaha waxa ugu yeeri karnaa daboolka gaariga. Wareegyadu waa qaybta dhalisa socodka gaariga. Dhammaantoodna waxay ku xiran yihiin ama ku jiraan gudaha gaariga, waxaana kamid ah jeenta kamid ah, candhooyinka kamid ah, kaambiyaha kamid ah, matoorka kamid ah iyo hubsanta. boodiga gaariga sidaan hore usoo sheegnay, boodigu waa qaybta ugu weyn gaariga, taas oo siisa haykalka gaariga iyo qaab dhismeedkiisa. boodiga agabka boodiga ku xirma waxa uga xirmaan laba qaybood, ama boodigu wuxuu qaybsanaa laba qaybood: qaybaha banaanka iyo qaybaha gudaha. haddaan u gudo galo qaybaha agabka ku xirma qaybaha banaanka ee boodiga gaariga, waxaa kamid ah turuusyada kamid ah, kabarka kamid ah, muraayadaha kamid ah, kristalyaasha kamid ah. muraayadihii waa kuwan ku xiran muraayadaha dushoodana waxaa lagu yeeraa kristalyaal, waxay sifeeyaan muraayadaha. turuusyadu waa kuwan. turuusyadu gaariga waxay uga xiran yihiin hore iyo gadaal, waana difaaca gaariga. gaariga yani markuu derbi ku dhaco ama gaari kale ku dhaco inay muraayadihiisa iyo jabaan leerarkiisa jabaan bay ka difaacaan. gaariyaasha qaar kuma xirna, qaarna way ku xiran yihiin. kabarku waa kan, waa daboolka sare ee matoorka, wuxuu daboolaa matoorka iyo agabka ku ag xiran buu daboolaa. agabka ku xirma qaybaha gudaha ee boodiga, agabkaas waxaa kamid ah dhash kabarka kamid ah, saacadaha kamid ah, steerinka kamid ah, beelasha kamid ah. waa kuwan dhash kabarka iyo saacadihii waa kuwa xagga uga jeedaan. intaas way ka badnaan karaan saacaduhu. waxaa jira steerinka, waa kan meelaha waa meelihii gaarigu qabow kasoo deynaya mukeefka gaariga. intaasoo dhan waxay ku xirmadaan dhash kabarkii iyo saacadihiina waa kuwaas. dhash kabarkii saacaduhuna ku sixireen. steerinka gaariga waa ujeedaan sambalkaas. baylasha waxaa la yiraahdaa xargahan gaariga markuu soconayo la xirto ayaa la yiraahdaa baylal. nalalka gudaha, raaytooraha, salbatooyada iyo bateriga gaariga. nalalka gudaha waa kuwan, waa nalal siyaabo kala duwan gaari gudihiisa uga ifa. waxay ku siinayaan surcada gaariga, waxay ku siinayaan batroolka gaariga ku jira intuu leeyahay. sidoo kale waxay ku siinayaan olyada gaariga inta ay marayso. sidoo kale digniin waxay ku siinayaan marka aadan baylasha aad xiran oo kale. heerkulka gaariga kale ku siinayaan, bateriga gaariga kale u shaqeyn ku siinayaan, marwaxada gaariga soo wax qabojinaysa, matoorku qabojinaysa kale ku siinaysa. gaariyaasha inkastoo gaariyaasha waxay ka siman yihiin ugu badan waxa weeye waa shidaalka iyo olyada iyo surcada iyo ugu badan. gaariyaasha horumarsan baa bateriga iyo marwaxadaha iyo waxyaalaha kale saacadahaas kale ay u dheer yihiin. kan ayaa la yiraahdaa raaytooraha. si fiican waxaan ugu sharxi doonaa markaan marano nidaamka qaboojinta matoorka. biyaha kulul raaytooraha waxay kasoo galaan halkaas kasoo galaan, beebka sare kasoo galaan, kuwa qabowna xaggaana ka baxaan, hoos beebka hoose ka baxaan. xaggaana waa meesha biyaha looga shubo gaariga. insha allah waxaan ku sharxi doonaa casharkeena qaboojinta matoorka. halkan waa salbatooyadii, waa meesha gaariga uu ku keydsado shidaalka baabuurka. kan waa baterigii wuxuu qaabilsan yahay saan soo sheegnayba waa keydka dabka ee baabuurka. marka gaarigu bilaa bateri yahay ma la daari karo, laakiin hadduu gaarigu daaran yahay bateriga waa laga furi karaa. waayo bateri waxaa loogu talagalay gaarigu markuu dinsan yahay inuu daaro oo dabka usii kaydiyo
marka insha allah waa mahadsantihiin. Qaybaha wareega gaariga, gaariga anaga saddex usoo qaybinay. Waxaan soo qaybinay boodiga gaariga, caqaayadaha iyo qaybaha wareega. Boodiga waxaan kusoo sheegnay agabka ku xirmado anaga soo taxnay, waxaan maanta kusoo dhex jirnay ayaga ahaayeen. Caqaayaduhu ayagu maadaama ay daboolka yihiin, daboolka gaariga ay yihiin, waxaa weyn kasoo qaadamana insha allah. Intaas uga harnay inay yihiin daboolka gaariga ay yihiin. Waxaa soo hartay qaybaha wareega. Qaybaha wareega gaariga waxaa ka mid ah matoorka ka mid ah, kaambiyaha ka mid ah, candhooyinka ka mid ah, hobsaanta ka mid ah, jeenka ka mid ah. Kan waa matoorkii. Hadda labada matoor maxay ku kala duwan yihiin? Matoorkan galaasyadu waxay ugu jiraan qaab V ah, matoor V ah. Hadda maqasho wax kan oo kale oo jeedaan baa filaya, yani xaggan bastumo madaxoodu yahay, xagga kalena waa bastumo. Qaab V ah bay ugu jiraan bastumadu. Matoorkana waxay ugu jiraan qaab dherer ah bay ugu jiraan bastumadu. Ujeedaan insha allah laba matoor kala duwan. Labadan waa laba kaambiye, kaambiye gear ah iyo kaambiye automatic ah. Insha allah ayagana waxaan ku sharxi doonaa casharadana soo socda markaan kaambiyaha marana sharxi doonaa insha allah. Candhadii dambe weytan, kana waa candhadii hore. Halkan ujeedaan waa candhadii hore. Birahan ujeedaan waa steerinkii. Xagga ay ku xirmadaan taayiradu ayaa waxa la yiraahdaa hobsaan. Jeenki waa kan. Jeenku wuxuu u dhexeeyaa gearboxka iyo candhooyinku xiriiriya. Gunaanad casharkan waxaa kusoo gabagabaynaynaa intaan. Shaqada buudiga waa meesha ay ku xirmaan dhammaan agabka baabuurku ka kooban yahay intooda badan. Candhooyinka iyo taayiradu waxa ay u dhexeeyaan dhulka iyo gaariga, waana meesha gaarigu u sahasho inuu dhulka ku socdo. Saaltayareeyaasha waxaa ka mid ah shakalka, isbiriinada, waxayna ku xirmaan buudiga iyo candhada dhexdooda. Gaariga labada candho leh waxa uu leeyahay, gaariga laba candhoolaha ah waa gaari ay socon karaan taayiradiisa dambe iyo kuwiisa horeba isku mar. Waxa uuna leeyahay marsho labaad oo loogu yeero ridooto. Gaarigu markuu laba candho leeyahay wuxuu ka caawinayaa gaarigu tusaale ahaan markuu ciidda ka galo oo kale. Inta badan gaariyaashu marka ay caadi u socdaan waxaa lagu socodsiiyaa ridootada lama isticmaalo oo candhada dambe kaliya adeegsadaa. Marka tusaale ahaan markuu ciidda ka galo oo kale baa geerkan dambe oo ridootada la adeegsanaysaa. Candhooyinka afartii taayir baa hal mar ka wada soconaya. Markuu labada dambe ciidda la galo, labada hore markii hore ma soconayso maaha, laakiin markaa xiriirisid ay xiriirsamaan gaarigan labadii hore iyo afarta lugood buu ka soconaya. Marka taas waxay u sahlaysaa inuu ciiddii ka dhex baxo haddii ciid yani ka qabsata gaariga kale ama dhiiqa kaaga dhigtay. Casharkana maanta intaas ku egyahay. Insha allah aad baa u mahadsantihiin.